kulanti habboon idil ahaantiin baddaawadayaal ku soo dhawaada Halays Media waa mar kale iyo barnaamijkeena shilka fanka. barnaamijkeena shilka fanka waxaaynu maanta ku daahqaadaynaa Iidla Cabdilaahi Nuune Iidla Yare iyo fanaanka Cabdi Dhaanto khilaaf dhinaca midabka ah ka dhex bilowday. ku soo dhawaada barnaamijka. sanadihii u dambeeyay ama sanadihii la soo dhaafay waxaa dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan kuwa ku jira fanka Soomaalida ku soo badanayay inay isticmaalaan dawooyinka jidhka lagu cadeeyo ama lagu bedelo, waana fanaaniinta aan laba gaban inay isbedel ku sameeyaan jidhkooda gaar ahaan midabkooda wajiga iyo gacmahaba. waxaana fanaaniintaasi laga xusi karaa fanaanka saldhigiisu yahay magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya, waana fanaan Dayaxdal Nuurshe oo guud ahaanba bedelay muuqiisa gaar ahaan jidhkiisa iyo gacmihiisaba. waxa uu ku xigay fanaanka lagu magacaabo Cabdi Dhaanto oo isna ku nool isla magaalada Muqdisho xarunta wadanka Soomaaliya. haddaba daawada sida aad muuqaalka ku aragtaan, alfanaan Iidla Cabdilaahi Nuune Iidla Yare ayaa waxa uu Facebookiisa ku soo qoray hadal u muuqda tala soo jeedin uu jeedinayo fanaanka Cabdi Dhaanto, waana Iidla Yare oo baraha bulshada u mariyay fanaan Cabdi Dhaanto. Iidla Yare ayaa waxa uu Facebookiisa ku soo qoray saacado ka hor hadallo u dhignaa ama erayo ay ka mid ahaayeen: aaway casharkii aan bixiyay, war ma waxaad weyday bansiin ama batrool, war ummadan dhib badana, please go to the Total ama shirkadda shidaalka Total soo hadalka ka u wado, ama ku xiji Taraq ama Janzigar ama waa shirkado ku yaala wadankaasi Kenya oo dhinaca baasiinka iyo batroolka. haddaba daawadayaal halka aad kadib waxaa ka soo jawaabay isna baraha bulshada soo qoray fanaan Cabdi Dhaanto oo sameeyay sawir Photoshop kaasoo uu ku sheegayo in Iidla Yare uu isagu iscadeeyo halka uu isagu bedelkiisana uu soo qaatay. waxaadna arkaysaa buu yiri gacmaha Iidla Yare iyo wajiga aan ba islahayn. haddaba daawadayaal sida aad la socotaan, gacmahan uu soo qaatay fanaanka Cabdi Dhaanto ee uu baraha bulshada soo dhigay ayaan ba islahayn wajiga Iidla Yare lagu yaqaano iyo gacmahan uu soo qaatay fanaanka Cabdi Dhaanto. sida aad la socotaan, Iidla Yare waxa uu dhashay midabka maariinka ama casaan xigeenka sida ay Soomaalidu yaqaanaan, balse sawirkan waxa uu ka turjumayaa inuu yahay Photoshop bila shaara. haddaba daawadayaal see u aragtaan in Cabdi Dhaanto uu qaadan waayo taladii Iidla Yare kadibna uu soo qaato ama uu sameeyo gacmo Photoshop? daawadayaal commentiga noogu reeb idinkoo la kaashanaya maskaxdiina saliimka. haddaad channelkan ku cusub tahayna subscribe saar, asxaabtaana la wadaag. وأنا محمد علي داها. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.